xasan sheekh maxamuud madaxweynaha Soomaaliya ayaa qirtay in ciidamada Itoobiya ay la wareegeen qaybo kamid ah dhulka Soomaaliya. hadalkan oo madaxweyne xasan sheekh maxamuud siiyay telefishinka ku hadla afka Carabiga ee Al Jazeera ayuu tilmaamay in ciidamada Itoobiya ay la wareegeen guud ahaan garoomada gobolka Gado, isaga oo tilmaamay in ciidamada halkaasi ku sugan ay guud ahaan bala wareegeen garoomada diyaaradaha iyo qaybo kamid ah wadooyinka muhiimka ah ee gobolka Gado. hadalka madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa wuxuu ku soo aadayaa iyadoo maalmihii dambe ciidamada Itoobiya ay ku soo qulqulayeen xadka u dhaxeeya Itoobiya iyo Soomaaliya, taas oo Itoobiya ku soo daabuleysay ciidamo fara badan tan iyo markii uu urtay khilaafka u dhaxeeya dawladda Soomaaliya iyo dawladda Itoobiya kadib markii heshiis isafgarad ay ku sheegeen dawladda Itoobiya ee la gashay maamulka iskiis ugu dhawaaqay madax bannaanida ee Somaliland, kaas oo dhigayay in 20 kiiloomitir la siiyo Itoobiya. madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa dhanka kale wareysigiisa waxa uu ku sheegay in muddooyinkii dambe dawladda Itoobiya ay hub fara badan ku daabuleysay ama ay gelinaysay wadanka Soomaaliya. arrintan ayaa waxa ay tahay arrin aad u culus, taas oo xasarada hadda ka dhex taagan Itoobiya iyo Soomaaliya waji kale u sii yeeli karta. عين العافية هوسبيتال waxau ka daweynayaa xanuunka baabasiirka ma dareemaysaa dhabar xanuun caajis joogta cuncun dhanka hoosa saxarado kugu adag iyo hamiyari dhanka gowasha hadaba iskaga ciribtir xanuunka baabasiirka muddo ka yar 15 maalin adigoon wax qalliina lagugu samayn wixii faahfaahin kala xiriir telefoonada kala eberli halhal 37 37 83 ama eberli halhal 37 37 86 ama lambarka gaaban ee 3 7 7 7